Dhallinyaro Soomaaliyeed oo iskugu jira wiilal iyo gabdho ayaa si iskaa wax u qabso uga fuliyay howlo nadaafadeed goobo ka mid ah magaalada Muqdisho iyo gobolada qaarkood. Dhallinyaradan oo iskood isu xilqaamay ayaa u kaba gashaday soo celinta quruxdii iyo bilicdii caasimadda dalka oo waayadan dambe meelo ka mid ah qashin hareeyay. Mutadawiciintan ayaa dhowr maalmood nadiifinayay qaybo ka mid ah jidadka magaalada Muqdisho, xeebaha iyo goobaha lagu caweeyo. Waxaa waayadan dambe ku soo badanaya dalka Soomaaliya dhalinyaro si iskood ah wax uga qabata bilicda iyo qurxinta magaalooyinka ay ku nool yihiin, sida ururinta qashinka, midabaynta jidadka iyo dhismayaasha gaboobay, sharaxaadda goobaha lagu caweeyo. Dhalinyaradan oo aan wax qarash cidna weydiisanin ayaa hadafkoodu yahay wadaniyad iyo daljacayl iyo sidii dalkooda uga mid noqon lahaa. Warkan iyo warar kale oo xiiso badan waxaad ka bogan doontaa channelkayaga Runta TV oo had iyo goor kuu soo gudbin doona warar sugan oo xaqiiqo ah.